marka doorashooyinka hadda waxaan ognahay in doorashooyinka golaha deegaanka ay furmeen runtii boqolkiiba 90 waxa uu ordayo runtii ka shaqeynayo u ololeynayo una taagana waa dhalinyarada Soomaaliyeed fursadaasna hor uma jiri jirin marka fursadaas iyo fursadooyin kale oo ka badan insha Allah waa rajaynayna dhalinyarada in loo furo sidoo kale tahriibta iyo dhalinyarta waxyaabaha macnaha dib u dhac u keeni kara sida maandooriyaashani in macnaha ayaga naftirkooda in lala dagaalamo oo wacyigelin loo sameeyo waayahay maxay kaga duwan tahay Cabdisamad oo aad nooga sharaxi kartaa doorashadii dadbaneed midan loo dareeri doono oo qof kasta miiska uu tagi doono si uu u doorto mataladiisa runtii waxay kaga duwan tahay doorashadii tan dadban iyo midan oo sheeg miiska saaran qof iyo codka ah runtii waxaa jirta qofka bini'aadanka ah markii macnaha sheeg la miisaamayo waxaa jira inta lagu miisaamo qof walba oo asiga isku miisaamo doorashada qofka codka ah waa doorasho macnaha runtii sababeysa xataa mas'uulka la doortay inuu wax qabadkii iyo bulshadii wax qabadkeeda biri ay noqon doonto macnaha sheeg inuu bulshadii matalo ay ku xirantahay wax qabadkiisa laakiin hadda macnaha kuraas la kala gatay ama kuraas magacaabis ku timaaday hadda kulli qofkaas kulli wuxuu waqti gelinaa cid magacaabatay ama cid waqti gelisay laakiin doorashada qofkii codka ah markasta waxay noqonay inaad waxaad aaminsan tahay inay bulshada ku soo dooratay bulshada wax ku soo dooratana waa dareemi kartaa waxa waa inaad wax u qabato wax ku soo hordhiso marka wax qabadkii laga gaabiyay in run ahaantii wax qabad wanaagsan dalka u noqon doontaan aaminsana marka shacabka ayaga ay wax soo doortaan muxuu kaga duwanaan doonaa marka qofka ku soo baxa doorasho qof iyo cod ah kii shalay kursiga loo xireeyay ee laga yaabo in ka badan 15 sano ama 20 sano inuu asiga kursigaas gaar u lahaa oo uu run ahaantii waxay keenay fursado badan sidoo kale waxay macnaha sheeg ay u tahay daawo inta badan kuraasta markii la soo kala qaato waxa dhici jirta in badan doodo badan inay ka sii dhashaan laakiin tan doodihiina waa yareynay qofkan wax lagu dooranayo waa wax qabadkiisa marka aad u kala fogeen waxaan isleeyahay tan bulshada ah markasta sida adduunka macnaha maanta ka dhacdo adduunka meel ay ka dhacdo ma jirto wax la iska xariiqo ama wax macnaha dad gooniyo go'aan ay ka gaaraan doorashooyinka iyo kuraasta iyo matalaada macnaha dawladnimada waa wax qof walba oo Soomaaliyeed ee muwaadin walbana uu sameeyay yahay oo xaq u leeyahay marka shakhsi inuu wax iska soo qorqorto qofka hore asiga oo dantiisa shakhsiga ka arkay iska magacaawdo runtii dawladnimadeena waxay ka socodweysanay qaybtaas taan u maleynaa lagana gudbi doona insha Allah waayahay dhalinyarada wax baratay ayagu shalay maaragtay fursadahaas aan heli jirin maanta kaalintooda bal ka waran iyo fursadaha ay u haystaan in ay dhex tagaan bulshadooda oo ay kartidooda iyo aqoontooda iyo xirfadooda maanta ku raadsadaan matalaadii iyo kuraastii shalay gaarka loo haystay run ahaantii waa arrin wanaagsan taasna faa'iidadeeda kulli qof walba dareemi kariya dadka Soomaaliyeed run ahaantii waa dad dhibaatooyin ka soo daalay maantana og waxa saxda ah iyo waxa qaldan oo haddaan indhaha la istireenin marka waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin furaha mustaqbalka siyaasadda dalka oo aqoontooda iyo cilmigooda iyo kartidooda haddii si saxan looga faa'iideystana aan isdhihi kala runtii dalka nabadeyntiisa iyo horumarkiisaba in macnaha si wanaagsan macnaha sheeg dalkan u hagaagi doon haddii dhalinyarada sida tahay looga faa'iideysto ka faa'iideysho la'aanta dhalinyarada ayaa sababtay dalkan markasta dhibaatooyin ay dhacaan cid la adeegsado waa dhalinyarada marka dhalinyarada haddii sidaas ay tahay burburkii iyo wax badan ay qayb ka noqdeen dhanka horumarkan haddii jaanis loogu furo waxaan aaminsanahay meesha maanta la joogo meel ka xagaysan la gaari doono insha Allah si fudud sidoo kale dalka Cabdisabadow waxa ka jira dhaqdhaqaaqiyo ama kooxo xag jir ah oo qawaarid ah oo dagaal kula jira dawladda iyo dadnimada Soomaaliyeedba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalinta leeg ay ku yeelan karayaan in afkaartaas guracan laga guuro oo fikirkan xag jirka ah meesha laga saaro Soomaaliya gudaheeda dawladnimadii caqabada ugu weyn ee maanta haysata iyo horumarkii oo ay dadku dawladda xataa ula xisaabtami karin waa caqabadahan xag jirka ee dalka jooga ama haysta meel ka mid ah see looga gudbi karaa kaalinta leeg ayay isku yeelan karaan dhalinyarada u midooda waa qodob muhiim ah kaalinta macnaha ama doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kooxaha xag jirka ah ama saameynta ay ku yeeshaan run ahaantii waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa looga faa'iideysto marka hore waa baahida run ahaantii waxa dadkeena maanta isku dirayna waa baahida oo maanta qof walba markuu oo dawladnimadii service-kii adeegyadii u baahnay email u shaqo tago iyo si siman cadaalad markuu dawladdiisa ama dadkiisa u kala kulmay qof walba adduunka waa kala shaqo tagi lahay shaqo la'aantii
iyo dhibaatooyinkii wasaaradii dalka ka jirtay taasaa waxay keentay in dhalinyarada si qaldan loo adeegsado waxaan aaminsanahay kulley dhalinyarta in badan waqtiyo badan waa loo soo adeegsaday siyaabo aan ficnayn qaldan iyadoo ayagoo macnaha dhinacyo badan aan laga eegin laakiin hadda waxaan aaminsanahay in fikir qaldan oo qof dhalinyaro aan lagu qanci karin laakiin midda aan u baahannahay oo mar kastaba gundhig u ah horumarka dhalinyarada waxay tahay in dhalinyarta ayaga la dhiso wacyigooda la dhiso shaqo abuur loo sameeyo jaanisada macnaha ay xaqa waddankan ay ku leeyihiin la siiyo marka mid walba waxa hadba macnaha meeshii dhalinyarada ay u badato focuska ay saartaa mar kastaba loo bataa marka waxay noqonayaan in macnaha horumarka iyo wanaagga iyo dib u dhiska dalka iyo horumarkiisa in qayb laga wada qaato mar kastaba waxa waaye markii koox ama si kaleeto nidaam kale ay yimaadaan dhalinyarta inta badan ayaga warka isgaarsiiyo marka haddii dhan wanaagsan dhalinyarta mar kastaba macnaha dhanka wanaagsan loogu yeero waxaan aaminsanahay inay wanaaggii qayb ay ka noqonayaan laakiin dhalinyarka isku xirkeeda iyo inay dalkan macnaha ay qayb ay ka qaadato mudnaanta ay lahaayeen ee waayena waxay keentay in cadowga siyaabo qaldan uga faa'iideysto iyadiina hadda waxaan rajaynaynaa inay dabka haddana already waa soo dhawaato waxa waaye maanta dadka Soomaaliyeed waxyaabo badan shal update ay sakeeyeen maanta update ka yihiin run ahaantii mar kasta way fiican tahay in qofka haddii uu wax wanaagsan qabto in fursad la siiyo dowladda maanta jirtana waxaan is leeyahay waqti mandate oo la siiyaa jirto welina waxay ugu dhiman yihiin waxaan is leenahay dalka mar kastaba inay doorasho ka dhacdo dalka badqabkiisa iyo horumarkiisa ay muhiim u tahay doorasho kor loo haysta ama doorasho dib loo dhigay dhibaatooyinkii wadamo badan ee dhaxalsiisay waa wada garanaynaa marka mar kasta waxaa wanaagsan in wax walba waqtigooda lagu qabto waxa maanta meesha aan joognana soo gaarsiiyay waxay tahay howl maanta la qaban lahayo beri loo dhigay si hadda wax ku socdaan wax aad u wanaagsan laakiin mar kasta waxaa fiican in wax walba waqtigooda lagu qabto taasaana keeni karto bulshada inay wax walba ay ka qanacdo run ahaantii dalka isbedelo badan oo sameeyey oo dhanka horumarka ah dalal badan oo adduunka maanta waxaad moodaa inaan kaga horeyno isgaarsiinta iyo waxyaabo badan oo bulshada macnaha u sahlayo inay adduunka macnaha dhaqaaqaysa marka waxaan is leenahay haddii maanta iyadoo dadkeena Soomaaliyeed maanta ayna helin ama dowladdii aysan waqti weyn aysan gelin run ahaantii dhalinyarta Soomaaliyeed intaas macnaha dadaal la wadayna intaan lagu soo gaaray haddii dadaalka laba jabaaro run ahaantii waxaan is leeyahay meesha maanta aniga aan joogno in meel ka fog aan gaari doono laakiin meesha mar kastaba anaga cilada naga haysato waa dhalinyarada oo run ahaantii ii sheeg enerjigooda iyo waqtigooda aqoontooda iyo curintooda aan laga faa'iideysan taasaan ku boorinaynaa dowladda Soomaaliya iyo qof walba macnaha ii sheeg kaalin ka geysan karo inay arrintaas ay u dhaqaaqaan laakiin anaga ka dhalinyar ahaan waxaan u taagannahay run ahaantii mas'uuliyadna aan iska saarnay inaan gobolada dalka aan tagno dalka dibadiisa aan ku soo socono anagana aan intaasna macnaha ii sheeg socdaalkaas oo ahay mid daaran in la helo dhalinyaro run ahaantii isku xiran marka dhalinyarada markaad la sheekaysato boqolkiiba 90 fikirka dalka ah in la horumariyo mid walba u diyaarsan yahay kaliya waxaa dhiman isla jaan qaadidii idan insha Allah waqti dhow waxaan rajaynaynaa insha Allah dhalinyarada hadday gobolada iyo hadday tahay dalka iyo dibadiisaba inay isku imaan doonaan shirar badan oo dhalinyarada lagu jahaynayna halkaas ay ka bilaabin doonaan waxaan ugu soo horeyso doorashada 2026 dhalinyarta awoodooda iyo heeganka ay ugu jiraan dalkan horumarkiisa inay qayb ka qaataan meesha laga ogaan doonaan meeshaas waa insha Allah